ugu yaraan 14 kalluumaysato oo u dhalatay Iiraan ayaa waxa sii daayay ururka Al-Shabaab oo afduub u haystay muddo 8 sano sida ay ku warantay warbaahinta dawladdu. waxa warbaahintu ay sheegtay in dadaal ay sameysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan lagu sii daayay maalintii shalay 14 kalluumaysato oo u dhalatay gobolka Chabahar oo ku yaala koonfur bari dalkaasi. ma caddayn wasaaradda arrimaha dibaddu ay wada xaajo toos la gashay mintidiinta iyo in kale. raggani waxa laga qabtay biyaha caalamiga ee ka baxsan xeebaha Soomaaliya sanadkii 2014. kalluumaysatada la sii daayay waxay ku hakadeen magaalada Muqdisho kahor intii aanay diyaaradii ka dejin garoonka caalamiga ee Imam Khomeini ee magaalada Tehran maanta oo Axada. waana kalluumaysatadii ugu dambeysay ee u dhalatay Iiraan ee afduub lagu haystay Soomaaliya la sii daayo bishii August ee sanadkii 2020. 3 nin oo kalluumaysata oo u dhashay Iiraan oo burcadbadeed Soomaaliyeed ay qabsadeen sanadkii 2015 ayaa waxa lagu sii daayay lacag madax furasho ahayd oo dhammayd $180,000. abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay kamid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka moobilo iyo lacag kaash ah. si aad uga mid noqoto guuleystayaasha ku shubo $0 ama $0.5 oo kaliya ama ka badan isla markaana ha furnaado teleefankaagu muddada 90 cisho ee abaalmarintu socoto adigoo isticmaalaya adeegga e-dahab. shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel